بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد maanta taariikhdu tahay saddexda bishii lixaad ee 2026 aniga oo hogaaminayo wafdi 70 qofood ah waxaan soo gaarnay guriga uu degan yahay siyaasi kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan u soo gaarnay waxay ahayd inaan islaax sameeyno waxaan u soo gaarnay waxay ahayd inaan nabadeyn sameeyno saacadu markay ahayd 5 galabnimo waxaan ugu bilaabatay anagoo nabadii ka shaqeynayno dagaal waxa soo fadhiyeen waa ciidan hadda saacadu waa 8 saacadeynimo dagaalkii wali waa uu socdaa intaas waxaa sii dheer in duqeyn lagu sameynayo odayaashii dhaqanka oo aniga aan hogaaminayo iyo sidoo kale guddi ka socday dawladda oo ilaa 6 xubnood ka kooban oo hogaaminayo Ugaas Maxamed Cali Ugaas iyo Senator Dhagdheer iyo Degay Geelle iyo Maxudiin Saabay iyo odayaal kale oo khiyaar ah guddigaasu ay laftirkoodu waxay wadeen nabadeyn waxayna ka yimaadeen mucaaradka intiisa kale ee dawladda anagoo hal qol ku wada jirno sidoo kale waxaa nala soo dhacay hoobiyaal iyo hub aad u culus magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay tahay magaalo nabadeed inay tahay magaalo horumar inay tahay magaalo ganacsi runtii uma qurux badno waxa hadda socdo ugu yaraan 10 saacadood ka badan ayaa waxa ka socdo dagaalkaasuna runtii waxaan ognahay dagaal inuu wiil ku dhasho inuu wiil ku dhinto ay wiil uusan ku dhalanaynin baaqa waxaan u soo jeedinayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saraakiisha dagaalka hogaaminayso waxa in la hadlayo waa odayaashii dhaqanka runtii waxay tihiin saraakiishii mustaqbalka inaad hadda dagaal sameysaan idinma qurux badno waxaan kaloo baaq u farayaa madaxda dawladda ay amar ka bixinayaan inay joojiyaan oo ay ka waantoobaan runtii bari waxaa noqonaysaan siyaasiyiin banaanka dimaanaysaan hadday dhacdo waxaad u baahan tihiin in amaan aad heshaan waxaad u baahan tihiin inaad nabadgelyo heshaan haddaad maanta ka shaqeysaan inaad wax siyaabo qaldan aad isticmaashaan adinkuna waxay noqonaysaa bari in sidii liin sameeyo ma rabno waddankan iyo magaalada Muqdisho in dhibaato lagu sameeyo dhammaanteen waxaa weynoo saameynaysaa mustaqbalkeena saameynaysaa waxaan mar kale ku baaqayaa in hadda dagaal ka socdo oo ay dawladda ay wado oo annaga hadda aan gurigan ku jirno oo leerkii uu dansan yahay oo korontadii biyihii laga jartay oo wadda aan ku baxna xataa naloo diiday hubi lagu garaacayo odayaashii dhaqanka halkan ay wada fadhiyaan waa 70 qofood noloshooda riski ku jirto guddigii ka socotay dawladda sidoo riski ku sugan yihiin waxaan mar kale baaq soo jeedinayaa in arintaas laga waantoobo oo xabadda la joojiyo oo hoobiyaha la joojiyo waxaan kelmad u dhaafayaa wadaasha iga dambeeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.